xilli wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland ay bilihii la soo dhaafay ka waday magaalada Kismaayo qorshe darawalada gaadiidka looga goynayo sharciga wadista gaadiidka ayaan waxaan arintan ka wareysanay Maxamuud Ciise Cali agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Jubbaland. Agaasimaha wuxuu sheegay in guud ahaan gaadiidleyda Jubbaland ay waajib ku tahay qaadashada sharciga wadista gaadiidka iyadoo darawalkii goosan waayo laga xareynayo gaariga. Sidoo kale agaasimaha wuxuu sharaxaad kooban ka bixiyay habka loo marayo qaadashada sharciga wadista gaadiidka iyo shuruudaha looga baahan yahay darawalka goosanaya. Qofku marka uu liisan qaadanayo waxaa jirta liisanka marka ugu horeyso qofku qaadanayo wasaaraddu imaanaya wasaaraddu markuu yimaado waxaa jira guddi itixaamada oo loogu talagalay dadka yimaada inay itixaan ka qaadaan xafiis gooni ah buu leeyahay waaxda liisanka halkaas u tagaya processka la marsiinaya waxaa jira calaamadihii sign roadkii oo boardkii oo dhagan kuwaas qofkii marka su'aalaha laga weydiinaya dabadna itixaan practical ayaa qofkii laga qaadaya sadarteed qof gudigaasi waxay go'aamiyaan qofka ku haboon ee liisan la siin karo sida caadiga ah shuruudaha laga rabo qofka markuu liisan goosanayo waa in qofku itixaanka uu ku baaso sign roadska ama calaamadaha wadooyinka sidoo kale waa itixaanka practical qofku inuu ku baaso qofku inuu caafimaad qabo lixdiisa lixaad qabo manta lahaana qofku inuu sax yahay oo maskaxdiisu ay fadhido muwaadinna uu yahay wax dambiyana aan hore u soo galin liisanka ay bixiso dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan wasaaradda gaadiidku wuxuu qofkaasi haysanaya oo liiska u shaqeynaya uu valid yahay muddo 5 sano ah oo waliba uu haysanayo bila canshuura oo wax canshuura laga qaadayo in jir muddo 5 sano dabcan liisanku grade kale leeyahay formka liisanku hadda waa kana gradada uu kale leeyahay waxa kamid ah waa grade A grade B grade C grade D. Cabdirasaaq Aadan Maxamuud waxa uu kamid yahay wadayaasha baabuurta wuxuuna sharaxay habka uu u maray markii uu goosanayay sharciga wadista gaadiidka. Waxaan qaadanaynaa maanta halka u joognaa laysinkaas oo sharci ah laysinka waxaa u marnaa qaabkii tilmaamaha wixii macnaha sharciga la weydiiyaa wixii kale naga dhiman macallimiinta noo dhameystira. Agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda gaadiidka Jubbaland ayaa ugu dambeyn waxa uu fariin u diray dhammaan wadayaasha gaadiidka wuxuuna faray in sharciga ay u hoggaansamaan. Wadayaasha baabuurta waxaan u diraynaa fariinta ah in liisanka ay qaataan dokumentiyada gaariga ay wada qaataan u hoggaansamaan yani laanta nabadgelyada wadooyinka iyo awaamirta ka soo baxda si guud wasaaradda gaadiidka. waxaana rajaynaynaa in loo hogaansami doono lama qaadan doono liisanka liisanku in la qaato ay muhiimad ay leedahay waxa weeyaan in qof kasta gaariga uuna iska kaxaynin dadka xirfadda gaarka ah ee wadida gaariga xirfadda ay u tahay inay ku shaqeystaan. Leila Umar Abdullahi, Jubbaland TV, Kismaayo.